madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa galabta u kicitimay dalka Itoobiya halkaasi oo ay ka wada hadlayaan arrin dhawaan ka dhacday gobolka Gabiley arrintaas oo ahayd in diblomaasiyiin dalka reer Itoobiya si xun loola dhaqmay haddaba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ka hor intii aanu ka dhoofin garoonka ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee madaarka waxaanu sheegay in ay raaligelin ka bixinayaan arrinkaasi dhacay waxaanu yidhi aad baad mahadsantahay runtii Soomaaliland iyo Itoobiya runtii xiriir ka dhaxeeyay waxa aad u qoto dheer mid ku jabayana maaha khalad ka dhacay dad inaga mid haday khalad ka dhacaan iyo haddii iyaga dad ka mid khalad ka dhaco mid ku xumaanay runtii maaha waana ka xunnahay wixii ka dhacay maartay diblomaasiyiintii Itoobiya dawladuna waxa ka qaaday talaabo adag saar la socotaan intii loo tiriyay falkaas runtii waxay leeyihiin waxaana ay xiriirina wixii meesha ka geysteen waxaan la horgeyn doonaa sharciga la horgeyn doonaa marka midaanadii wuxuu weeyaan haddii aan halka tagana kuleeyay oo madax qaranahay Itoobiya tagana Itoobiya waxaan wixii aan talaabo qaadnay iyo waan ku qancinaynaa inaan ka xunnahay oo sheegaynaa dibna u dhicmaysa insha Allah in maartay diblomaasi oo maartay dalkii jaarkeena ka socdo oo dalkii inoogu dhow maanta Soomaaliland maanta dalka ugu dhow ee maartay xiriirka ugu wanaagsan leeyahay waa Itoobiya marka runtii aad iyo aad baan ugu xunnahay iyagana waan ku qancinaynaa in badanna shirarka kan lagu hadlay aad iyo aad baan runtii loogu qanciyay waxaan maartay khalad soo ogaa bilaad baan khalad u dhacaa wax si ay dawladda Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland midna raali ka yahay Xasan Maalidar Star TV magaalada Hargeysa.